بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara waxaa noogu soo dambaysay dadka mu'miniinta ah oo la faray ama la amray nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ugu bishaareeyo kuwa khaasatan iimaanka laga helay camalka saalixana la yimid inay alla agtiisa ku leeyihiin jannooyin hoostooda ay webiyaalo soconayaan mar kastoo laga arsuqo xaggeeda tamaartana risqisiin ayaga lagu risqisiinaya darteed waxay leeyihiin kani waa kii horayna loogugu arsuqay waayo asagoo mutashaabih ah oo midka adduunka xagga magaca kala mid ah ayaa loola imaanayaa waxay kaloo jannada gudaheeda ku leeyihiin dumar daahir ah buu yidhi ilaahay oo nadiif ka ah dhinac walba wahum fiiha khaaliduun wayna ku dhex waarayaan ina allaaha ilaahay laa yastaxyii kama xishoodo ka sariigan maayo an yadriba inuu yeelo maalan tusaale maa bacuudatan ka neeco iyo dhilmaanyo iyo famaa fawqahaa wixii ka weynba wixii dhilmaanyo fowqeeda ah inuu ilaahay masal ka dhigo ka sariigan maayo fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay ogaanahayaan annahu kaasi alxaqu xaq inuu yahay masalkaa oo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday wa ama aladiina kuwiise kafaruu kufriyey oo gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa araada allaahu muxuu ilaahay kala doonayaa bihaadaa midkani maalan masal ahaan yudilu wuxuu ku lumiyaa bihi kaa kafiiran in badan wayahdii bihi kafiiran wax badanna ilaahay waa ku hanuuniyaa oo qolo badan baa aaminaysoo hanuunaysa qolo badan baa beeninaysoo markaa dhumaysa wamaa yudilu bihi mana ku dhumiyo oo kuma baadiyoobo ila alfaasiqiina faasiqiinta maahane inta fallaaga ah ee amardiidda rabbi ka shaqaysay u soo taagan habeen iyo maalin meehee cid kaluu rabbi ku lumiyaana ma jiro markay soo degtay ilaahay dadka kayrkiisa caabuda tusaalahoodu waa sidii ka mahali cankabuuti ittakhadad baytan markay soo degtay aayaddii kale wardadow dhegaysta mahal ayaan idiin samaynayaa waxaad caabudaysaan alla sukadiisa dubaab iyo tixsi ma abuuri karaan xataa hadday isu tagaan iska daa abuure hadduu wax kala dafo uu ka qaato kama dhacsan karaan markay soo degtay aayadaha kale mahalahum ka mahali ilkalbi waa maxay bay dhaheen ilaahan marna dameer sheegahaya marna ey sheegaya marna sheegahaya cankabuuto iyo caaro kolkaasuu ilaah yidhi ina allaaha ilaahay laa yastaxyii ka xishoon maayo kama sariigto an yadriba inuu yeelo ama ka sameeyo maalan tusaale maa bacuudatan dhilmaanyo iyo famaa fawqahaa wixii markaa ka weynba dhilmaanyo iyo wixii ka sarreeya inuu ilaahay masal ka dhigo ka sariigan maayo fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fayaclamuuna way ogaanayaan annahu tusaaluhu alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyeyna fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa araada allaahu ilaahay muxuu ka doonayaa muxuu ka rabaa uu kala jeedaa bihaadaa midkani maalan tusaalaha yudilu bihi kafiiran in badan buu ku dhumiyaa wayahdii bihi kafiiran wax badanna wuu ku hanuuniyaa wamaa yudilu bihi mana ku dhumiya ila alfaasiqiina faasiqiinta falaagadaa maahane aladiina kuwii waaye oo aladiina yanquduuna burinhayay cahd allaahi ilaahay ballantiisa min bacdi miihaaqihi la ballamidiisa iyo adkayntiisii ka bacdi mar allaala markay alla la ballameen oo ay ballanta adkeeyeen kadib waa kuwa ballanta furahaya min bacdi miihaaqihi ballamidiisa kadib wayaqtacuuna goynahaya maa kii amara allaahu ilaahay uu amray bihi kaa an yuusala inuu xidhiiriyo wayufsiduuna
haddana fasahaadinahaya fi lardi arlada ulaa'ika kuwa hum ayagunbaa alkhaasiruuna kuwa khaasiriintee khasaaray markaa ah. dadka ilaahay ballantiisii waxyaabaha uu la galay miihaaqii buriyey ka bacdina jarjarayee googoynahayee aan xiriirinaynin wixii ilaahay amray in la xiriiriyo, arkaantii islaamka, arkaantii iimaanka, diinka iyo taacada, qaraabadii raximkii, waxaasoo dhan kuwa goynahaya haddana arlada fasahaadinaya waa kuwa uu ku lumiyo ila subxaana wa tacaala. waa xaqdiidayaasha aan diinta rabbi rabin, alladiina kuwii weeyaan yanquduuna burinahayay cahd allaahi ilaahay ballantiisa min bacdi miihaaqihi ballamidiisii kadib, wayaqtacuuna goynaya haddana maa amara allaahu wuxuu ilaahay amray bihi maagaa an yuusala in la xiriiriyo, wayufsiduuna hallaynayee fasahaadinaya fi lardi arlada ulaa'ika kuwa hum ayaga unbaa alkhaasiruuna, hum ayaga alkhaasiruuna kuwa khaasiriintee khasaaray ahee kayfa sideebaa takfuruuna ugu gaaloobaysaan billaahi ilaahay, wa kuntum waxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa amwaad ahoo meydadyaal ah, kuwa biyo ah, kuwa aan qalaqnayn oo amwaad ah. fa axyaakum wuu idinsoo nooleeyey ilaahay, uma ka bacdi yumiitukum wuu idin dilayaa, uma ka bacdi haddana yuxyiikum wuu idinsoo noolayn, uma kadibna ilaahi xaggiisaa turjacuuna laydiin celinayaa. meesha aad u laabanaysaan oo aad u noqonaysaan waa xaggiisee. seed ugu kufrinaysaan ilaaha? kayfa takfuruuna, war seed ugu gaaloobaysaan billaahi ilaahay, wa kuntum idinkoo ahaa amwaatan meedadyaalo. waa intaan nala dhalin oo aan nala khalqin, macnaha waa intaan biyaha ahayn. fa axyaakum alla waa idinsoo nooleeyayo waa nolosha aan hadda ku jirno. uma ka bacdi yumiitukum wuu idin dilayaa, waa dhimashada hadda la dhimanaayo. uma kadib yuxyiikum alla waa idinsoo noolaynayaayo waa geerida hadda aan dhimanayno, khalqiga ka dambeeyee bacfiga ah. uma ilayhi turjacuuna, ka bacdina xaggiisaa laydiin celinaaye see allahaad ugu gaaloobaysaan. huwa ilaahay alladii ilaahii waaye khalaqa abuuray lakum adinka idiin khalqay maa fi lardi waxa arlada ku sugan oo dhan jamiican ayagoo wada jira. waxaan arlada yaala oo dhan bani aadam baa loo khalqay. bar bani aadamow idinkaa laydiin abuuray, jinkiina iyo insigiina loo khalqay. saa darteed buu alla tilmaamayaa ilaahay nimcooyinka waaweyn ee uu noo galay. huwa ilaahay alladii ilaahii waaye khalaqa abuuray lakum adinka maa idiin abuuray wax walboo fi lardi arlada ku sugan jamiican dhammaan. uma istawaa kadib wuxuu u qasday ilaahay ila asamaa'i samada xaggeeda. istawihii macluumka ahaa ma aha. istawihii ilaahay carshiga raxmaanka dushiisa carshigiisa dushiisuu ahaaday ma ahee waa u qasday waaye. uma istawaa ila asamaa'i samada xaggeeda ayuu u qasday. fasawaahunna wuxuu ka simay ee uu ka ehaysiiyey 7 samaawaatin 7 ciryaalo ah. wa huwa ilaahayna bikulli shayin shay kasta caliimun alla ku cilmi badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. ilaahay shay walba caliim buu ku yahay, shay walba alla ku cilmi badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. idan arlada ayaa ugu horaysay khalqi ahaan wax ilaahay abuuro. intaa ka bacdi ayuu ilaahay qur'aanka noogu tilmaamay aayado kale, wayna noo imaan doonaan. ilaah wuxuu yidhi qul ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa alarda fii yowmayn, ma waxaad ku kufrinaysaan allaha arlada idinku khalqay 2 maalmood. watajcaluuna lahu andaadan, ma wax lamidaad u samaynaysaan. dalika rabbulcaalamiin. wajacala fiiha rawaasiya min fawqiha, arladii markuu khalqay ayuu buurihii kor yeelay. wabaaraka fiiha, wuu barakeeyey. waqadara fiiha aqwaataha, quudkeedii buu ku qadaray iyo waxay dadku u baahnaayeen fii 4 ayaamin 4 maalmood oo takmiilo ah, macnaha 2 arlada ah ila waxa ku dhex sugan ah, sawaa'an lisaa'iliin. uma istawaa ila asamaa, kadib ayuu samadii u qasday wahiya dukhaan ayadoo khiiq ah. faqaala lahaa,
walilardi i'tiyaa طawcan aw karha qaalataa ataynaa طaa'iciin saasuu markaa ku yidhi faqadaahunna 7 samaawaatin fii yowmayn 6 maalmood saasay kaamil ku tahay marka sidaa darteed buu ilaahay taa tilmaamayaa ee uu leeyahay uma istawaa kadib wuxuu u qasday ila asamaa'i samada xaggeeda abuurkeeda fasawaahunna waa uu ekeeyo wuxuu ka sameeyey 7 samaawaatin 7 samaawaad ah wa huwa ilaahayna bikulli shayin shay kasta dhammaantii caliimun alla ku cilmi badan buu ahaaday waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi اlardi khaliifa wadkur xus id waqti qaala uu yidhi rabbuka rabbiga lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii anigu malaa'igay jaacilun waan yeelayaa kii yeelahaya ayaan ahay innii anigu jaacilun fi اlardi arlada dhexdeeda ayaan khaliifatan khaliif ku samaynayaa waa wax isbeddelaa bani aadan baa loola jeedaa wixii khaliif ahee adduunka camira oo jiilba jiil beddela ayaa loola jeedaa qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii atajcalu ma yeelaysaa allow fiihaa arlada gudaheeda man mid miyaad yeelaysaa yufsidu fasahaadinaya fiihaa arlada dhexdeeda arlada halaynayee fasahaadinayee macaasi iyo xumaan ku fasahaadinaya wayasfiku dimaa'a dhiigagna daadinaya dhiigna arlada ku daadinayee ayaga islaynaya miyaad samaynaysaa ilaahayow wanaxnu annagu nusabbixu baanu nahay kuwii ku nasahaya bixamdika mahaddaada nusabbixu waan kugu tasbiixsanaynaa ilaahayow wanaxnu nusabbixu annagaa tasbiixsanaynoo kugu tasbiixsanayna bixamdika mahaddaada annagoo ku dheehan wanuqadisu laka waan ku hufaynaaye rabbow annagaa ku tahirayna waxaan kuu qalmin annagaa kaa hufayna annagaa kuugu tasbiixsanayna wax badan adigee ma waxaad abuuraysaa wax arlada fasahaadinaya dhiigagna qubaaya wanaxnu annaguna nusabbixu aanu nahay kuwii tasbiixsanaya bixamdika mahaddaada oo wanuqadisu rabbow annagaa ku hufaynoo ku tahiraynoo waxaan kuu qalmin laka adigee qaala ilaah wuxuu yidhi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaadan ogayn malaa'igay waxaadan idinka ogayn ayaan ogahay aadan baa la khalqay khalqigiisii sida loo abuurayna qur'aankay noogu imaan doontaa sida ilaahay subxaana wa tacaala u khalqay iyo wixii laga qalqay way noo imaan doontaa markii la qalqay wa callama wuu baray ilaahay aadama aadam alasmaa'a magacyadii kullahaa dhammaan ayuu ilaahay baray subxaana wa tacaala wixii magac ahaa oo dhan ayaa la baray wuxuu ku intifaaci lahaa baa loola jeedaa saxankii iyo qaadadii iyo wixii adduunka loosugu magacdarayoo dhan baa la baray say noqotaba alasmaa'a kullahaa ayuu ilaahay baray uma kabacdi caradahum wuxuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igtii dusheeda faqaala wuxuu ku yidhi ilaahay malaa'igtii ambi'uunii war ii sheega biasmaa'i haa'ulaa'i kuwaan magacyaalkooda in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegahaya haddii aad run sheegaysaan oo idinka wax kasta aad isku koobteen oo dhahdeen hanagu khalqina iska daa bal kuwaan magacyaalkooda ii sheega faqaala ambi'uunii waxaad iiga warantaan ood ii sheegtaan biasmaa'i haa'ulaa'i kuwaan magacyadooda in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegahaya qaaluu waxay yidhaahdeen waa malaa'igtiiye subxaanaka nasahnaantaadee rabbow adigaa hufan macnaha ilaahow adigaa nasahan laa cilma cilmi iyo ogaal iyo aqoon lana annagu nooma sugnaanin oo uma lihin ilaa maa maahane callamtana aadna bartay wixii la baray ee tasbiix ah iyo waxay rabbi ku hufi lahaayeen wax aan ahayn oo aan naqaanaaye ma jiro falamma macnaha ilaa maa callamtana innaka adigu anta adigu allow alcaliimu alla cilmi badan baa tahay alxakiimun ee fal fiican alla xikmad wax ku jaangooyey xikmad wax ku wada adigaa ah saa darteed waan ku hufnay nasahnaashaa kuu sugnaatay subxaanakay nasahnaantaadey laa cilma lanaa
aqoon uma lihiin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay maahane waayo innaka adiga anta adigu alcaliimu alla cilmi badan baa tahay alxakiimun ee falfiicane qaala wuxuu yidhi ilaahay yaa aadamu aadamow ambi'hum bal u waran oo u sheeg biasmaa'ihim kuwan magacyaalkooda xabad xabad buu u tiriyey una sheegay falammaa markii amba'ahum uu uga warramayuu u sheegay biasmaa'ihim magacyaalkooda qaala wuxuu yidhi ilaahay alam aqul miyaanaan idinku odhan lakum adinka malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka qaybkoodii waxa ka maqan iyo waalardi arlada wa aclamu waxaan ogahoon u cilmi badanahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa kii kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwa qariya waxaad muujisaan iyo waxaad qarisaanba inaan cilmi u leeyahay samaawaadka waxa ka cilan ee ka maqanee qayb ah iyo arladaba inaan ogahay miyaan horay idinku sheegin soo waxaad garan weyseen sow aadan ma garanin waxaad sheegi weyseen sow aadan ma sheegin mar allaala markay meeshu arrintu maraysay oo aadam mucallin uu u noqday malaa'igtii waxay sheegi waayeen uu sheegay sharaftiisii iyo qiimihiisii kor noqday ayaa bannaanka la soo dhigayaa oo waxaa la caddaynayaa inuu ka sharaf mutaystay waxaana la farayaa inay u sujuudaan waid qulnaa wadkur xus id waqti qulnaa aanu u niri lilmalaa'ikati malaa'igtii aan ku niri usjuduu warhoy u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis mooyaane abaa waa diiday ibliis malaa'igtuu ku dhex sugnaa kamana mid ahayn way noo imaan doontaa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih sidaa darteed wuu ku dhex sugnaa mase ka mid ahayn ilaahay subxaana wa tacaala bacdamuu malaa'igta amar siiyey asagana uu ku dhex jiro amarka inuu qaatay ahayd asagu waa diiday waid qulnaa waqti xus aanu ku niri lilmalaa'ikati malaa'igtii aan u dhahnay usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis mooye abaa wuu diiday wastakbara waa iskibrisiiyey kibri isla weyni ayuu la yimid wa kaana min alkaafiriina kaafiriintuuna ka mid ahaaday wa kaana wuxuu ka mid noqduu ahaaday min alkaafiriin waa dadka amarka alle ku kufriye markaa diiday saasay xaaladiisu noqotay kibir iyo madax adeeg ayaa ku kalifay xasad iyo isla weyni baa ku kalifay inuu asaga nasab dheeri tilmaantay ayaa ku kaliftay way noo imaan doontaa seen ugu sujuudayaa waxaa dhoobadhooba ka abuurtay buu yidhi anaaba ka khayr badane khalaqtanii min naar wa khalaqtuhu min tiin naar baad iga abuurtay dhoobadhoobaad ka abuurtay asagana waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamow waqulnaa yaa aadamow yaa aadamu uskun deg anta adii wa zawjuka zawjadaadaba way noo imaan doontaa markuu xasili waayaa xaawo loo abuuray mar allaala markii xaawo loo abuura layaskuna ilayha baa loogu talagalay asaga iyo xaawaba rabbi jannada ayuu askuniyey waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamow uskun deg anta adii wa zawjuka zawjadaadaba aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ragadan ayadoo waasica xaydu shi'tumaa meel allaala meeshii aad ka doontaan ka cuna walaa taqarrabaa hase u dhowaanina haadihi ashajarata geeddaan ee tan ah geeddaan ha u dhowaanina geeddaa ilaahay baa garanaya wax loola jeedo bacdamay adduunka oolinna wax sheegitaankeeda macno weyn noo siyaadin lahaa ma jiro uun rabbi wuxuu noo tilmaamay geed uun inay tahay dhammaanka cuna walaa taqrabaa haadihi ashajarata geeddaan ha u dhowaanina haddaad u dhowaataan fatakuunaa min aldaalimiin waxaad noqonaysaan laba daalimiinta ka mid ah haddaad geeddaa cuntaan fatakuunaa waxaad ahaanaysaan min aldaalimiin laba daalim oo daalimiinta ka mid ah ayaad noqonaysaane geed baa laga reebay faazallahumaa wuu ku simbirixiyey labadooda ashaytaanu shaydaan baa ku siray canhaa geeddii xaggeeda fa akhrajahumaa wuxuu kaga soo saaray mimaa wixii kaanaa ay ahaayeen
fiihi gudihiisoo nimcadii iyo barwaaqadii iyo jannadii oon la'aantii qawanaan la'aantii wixii oo dhan buu ka soo saaray. waqulnaa waxaannu ku nidhi ihbituu hoobta bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kalou caduwun cadow u yahay, walakum waxaa idinkugu sugan ood ku leedihiin fil ardi arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaasho wa mataacun iyo raaxo ilaa xiin wakhti intii laga gaaro. waa uu siray geeddii buu ku simbirrixiyey. wargeed haddaad cunto boqor aad noqonaysoon dhimanayn ma ku tusiyaa buu yidhi. geeddii buu farta ugu fiiqay. geeddii bay cuneen. rabbi baa soo daadiyo hoos baa loo soo dejiyey. adduunkaa la keenay. walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin ilaa wakhti laga gaaro ajashiinaa. fatalaqaa waa uu la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii xaggiisa kelimaad buu kala kulmay. fataaba calayhi waana ku soo laabtay dushiisa. ilaahay wuu ka towbo aqbalay, kelimaadkii buu ku towbo keenay. rabbina fataaba calayhi dushiisa wuu ku soo laabtay. innahu ilaahay huwa ilaahay attawaabu waa alla tawaab ahoo towbad aqbal badan, alraxiimun ee naxariis badan. kelimaadkaa way noo imaan doonaan. rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriina. saasay dhihi doonaan. sidaa darteed kelimaadkaa buu rabbi xaggiisa kala soo laabtou ka helay. kadibna wuu ku towbo keenay. ilaahayna wuu ka towbo aqbalay. waayo innahu huwa atawaabu alraxiim. ilaahay waa alla tawaab ahoo towbad aqbal badan haddana naxariis badan subxaana wa tacaala. qofku markuu qaldamo inuu towbo keeno towbo u degdegaa loo baahan yahay. shaytaankase waa noo imaan doonaa. ibliis markuu ilduufuu qaldamay, hadallada kibirkiis la weyniduu markaa ku hadlay. laakiin aadam towbuu u degdegay, rabbi buu u soo laabtay, ilaah buu dembidhaaf weydiistay subxaana wa tacaala. qulnaa waxaannu ku nidhi ihbituu hoobta minhaa meesha aad ku sugantihiin xaggeeda, ama jannadan xaggeeda, ama makaankan sare xaggiisa, ama meesha sharafta leh aad ku jirtaan jamiican dhammaantiinba aada hoos aada. fa imaa ya'tiyannakum hadduu idinkaga yimaado minnii xaggayga hudan hanuun, faman tabica qofkii raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanayso, walaa hum mana ay aha yaxzanuuna kuwa markaa murgoonaya. mana cabsanayaan mana murgoonayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. kuwii cabsanayoo tiirayoo murgaayana markaa ma aha. saa darteed hoobta oo hoos aada, baxa oo meesha aad ku sugan tihiin ka taga. qulna hbituu waxaannu ku nidhi hoobta minhaa jannada xaggeeda ka hoobtii meeshii aad ku jirteen jamiican dhammaantiinba. fa imaa ya'tiyannakum hadduu idiin yimaado minnii xaggayga hudan hanuun hadduu idinkaga yimaado, kitaab hadduu idiin yimaado, nebi socdo hadduu idiin yimaado, faman tabica hudaaya hanuunkayga qofkii raaca falaa khawfun calayhim cabsi korkooda ma ahaanayso, walaa hum yaxzanuuna manaha kuwa murgoonaya. waaladiina kuwiise kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey. waaladiina kafaruu kuwiise kufriye oo beeniye oo wakadabuu biaayaatina. waaladiina kuwii kafaruu kufriyey ama gaalooba oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkeennana, ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waaye. hum ayaguna fiihaa naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. naarta dhexdeeday ku waarayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. yaa banii israa'iila reer bani israa'iiley waa carruurtii yacquub, awlaaddii yacquub, udkuruu xusuusta oo xusa nicmatiya nimcadayda allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina. wa awfuu oofiya bicahdii ballantayda oofiya. uufi waan oofinayaa anigane aan oofiye bicahdikum ballantiina. war waxaan idin diray sameeyoo fuliya saan ballantiina u oofiyo. wa iyaaya ani uunna farhabuuni iga yaaba. war ani iga yaaboo iga cabsada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. reer bani israa'iiley yaa banii israa'iila reer bani israa'iilay udkuruu xusuusta nicmatiya nimcadayda xusuusta allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina. wa awfuu oofiya bicahdii ballantayda oofiya. uufi aan oofiye bicahdikum ballantiina.
bicahdikum wa iyaaya ani keligay farhabuuni iga yaaboo iga baqa wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu aan dejiyey musadiqan xaalo uu yahay kii rumaynahaya limaa macakum waxa micigiina ahaaday kitaabkan qur'aankii aan soo dejiyey aamina waayo towraad iyo injiil buu ayidayaa towraad iyo injiil buu rumaynayaa limaa macakum wixii micigiina ahaaday walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin kaafirka u horeeyee bihi kitaabka rumeeya ee beeniya walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkaygana hamanan lacag ha ku iibsanina qaliilan ee markaa yar aayaadkan alla ha gadanina aayaadkan alla ha ku iibsanina haman qaliil ah wa iyaaya ani uun fattaquuni iga baqa ani keligay iga cabsada buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala war rumeeya reer bani israa'iiley wixii aan soo dejiyey wa aaminuu bimaa anzaltu musadiqan asagoo rumaynaya waxaa alla soo dejiyey waa kitaabka qur'aanka wuxuu tasdiiqinayaa limaa macakum waxa micigiina ahaadeed haysateen walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin kaafirka u horeeya bihi qur'aanka ku kufriya walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkaygana hamanan qaliilan haman yar ha ku iibsanina lacag yar oo aan waxba ahayn ha ku gadanina intay wax qorqoraan bay dhihi jireen waan idinka iibsanaynaa inay wax taxriifiyaan ay tabdiiliyaan war aayaadka allah ha ku iibsanina haman qaliil ah war aayaadka ilaahay dadka ha ka gadanina wa iyaaya ani keligayna fattaquuni iga cabsada walaa talbisuu ha dheehina ha ku dhex darinoo ha isku qaldina ha isku barxina alxaqa xaqa bilbaatili baatilka ha ku qasina oo wataktumu alxaqa marka aad xaqa qarisaan wa antum taclamuuna idinkoo og ay dhacda inaad marka xaqa qarisaan walaa talbisu alxaqa bilbaatil waayo xaqii baatil qofkii isku qasaa ujeeddadiis waa inuu xaqa qariyo wa antum adinkoo taclamuuna og wa aqiimu asalaata salaada ooga wa aatu azakaata sakadana guta oo bixiyo masaakiinta siiya warkacuu rukuuca oo tukada maca alraakiciina kuwa raakiciintee rukuucayay tukanaya micigooda markaa la tukada walaa talbisuu ha dheehinoo ha ku qasina alxaqa xaqa bilbaatili baatilka ha ku dhex darina wataktumu alxaqa walaa taktumu alxaqa xaqa ha qarinina oo haddiise xaqa iyo baatilka aad isku dartaan wataktumuu aad markaa qarisaan alxaqa xaqa yaynan dhicine xaqa bannaanka soo dhigee daahiriya wa antum adinkoo taclamuuna og wa aqiimuu ooga alsalaata salaada ooga wa aqiimu asalaata salaada mar walba oogitaan baa laga cabbiraa waxaa laga cabbiraa in la istaajiyo waxaa laga cabbiraa in la iqaameeyo sababta aqiimu loo isticmaalaya mar walba waxay tahay waa rukuucdeeda sujuuddeeda arkaanteeda hay-adeeda hanaankeeda waajibaaddeeda shuruuddeeda kulli oofiya salaad taagan oo istaagi karta keligeed ka dhiga salaad higaagsan oo la hagaajiyey ka dhiga salaad middii ilaahay aqbalahayay ka dhiga salaad gebgeb laga siiya ha tukanina salaad madaxa inta dhulka la dhiga kor loo soo kaco isla markii ha tukanina salaad markaad tukataan idin ducaysa dukada salaad markaad ka baxdaan rabbi aqbala tukada salaada ka dhiga salaad la oogay oo la hagaajiyey oo sidii loogu talagalay looga soo baxay wa aqiimu asalaata warhoy salaada ooga wa aatu azakaata sakadana guta salaadu waa xaqa alle sakaduna waa xaqa masaakiintii bani aadamka ayagana guta oo siiya wa aatu azakaata sakadana guta oo warkacuu rukuuca macnaha tukada maca alraakiciina raakiciinta micigooda la rukuuca macnaha la tukada dadka tukanaya jamaacada xaadira dadka tukanaya la tukada wa aqiimu asalaata salaada ooga wa aatu azakaata sakadana guta warkacuu rukuuca maca alraakiciina kuwa rukuucaya micigooda ata'muruuna annaasa bilbiri wabiاllahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam.